إلهي مهدي سنة كان روب بدن بوها نبض بدن واد جاي هاي صد سنة سوالات مرة سيد إيراد مرقدات كذي عدو ذواك أذكت هاي ورور مقبت إلهي بوي ابن آدم وحيانا كلام وحدا قاضي كلام عدو إذا رب ما أنت ورور كما قبت وشرب لجسا جود هذا هو استعاش هاي جود هذا هو هذا المديسان ديمقراطية تلوذاق له لكن ذاتك قاركين مرن كينا مركا أركان يصير هذا هو ملحو سؤال هل عيب بيلاد هاي وأنا أفسوالي ذاتك كوه الله أي كجدونتي markay TV-da ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad haysan miir qabin ay hadlayaan laakiin marka la eego wax qabadkeena inta Soomaaliyeed inaga ugu wanaagsan iskaashana wax wada cuna kala caroonin tala midaysan la murankeenu ha xumaado iyo hadalkeena marka madaxda muqdal gaarkaaye dalka maanta dad badan baa waxay ka deereeyeen ka hadla wax baas ka sheega horta dawladda waxaan u samaysanay ee caalamku dawladaha u samaystay ee dawladda looga maarmi waayay waa inay mashaakilka xallido mashaakilka inay xallisaa dawladda loo samaystay gabigeedaba oo looga maarmi waayay oo siyaasadda oo yiri oo xisbiya loo furtay oo baarlamaan loo sameeyay oo madaxweyne loo sameeyay oo wasiir loo samaystaa caalamka oo dhan ka badaysanay dal waliba maalin kasta waxa jira mashaakil la xallinayo dalka iska dhaaf inteena guriyeen ku soo toosnay qoys caruur aabba hooyo walaal qoyska laftiisa aroon buu ka jira hooyadii inanteeda ugu yar oo maxad quraacdu la dahday baan isku laayaa buu ka dhacaa dalka oo dhan markaa mar walba wax jirta mushkilad xalinaya way ilaahay baa adduunka u abuuray sharkii khayrkaas ka rabsado markaa waa in aan la diidin hadii aad maqasho halka hawl baa laga hayay qof qaloocan baa jira koox qaloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dawladda u xisaaran waxa ay qabato waxa kale dawladdu waxay saaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaale loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si ay u yaraato dhibaatadu marka dawladda fadhuma yaala 24 saacadood ee maalin walba waxay ku fogantahay hawsha marka soo dhawaado geeskan Afrika maanta aynu ku noolahay bal amuurta ilaahay caalamka oo dhan baa isku yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dawladii waaweynaa Mareykan China روس تركي إيران محمد السعودي نيكي أمر دقالة أما حوق أما علم سكتوا هاي وجالس يافكوك سوتش هذا إما كأور ماها ووريا ذي اللهين مركي استعمار كدل كبوبي ماشي لو جسوه الرئي أدون كور بسكوه الدير جالس يافكون به وايو إلى هاي وحكوا أبو ري هالكن ونوا أبو ري كذا جت شقرا في آن مالها أدون كأقوم مهمسن بدرعس وحلا شجع إن السنة كي مران إن كبدت تضرب بقول أو بليون بعشرة قيمة وتاي أو يورو يوم كلا ساعات برجعيشيا مركز دل كستا إلا أمريكا إلا تشاينا ويسام يسام ماشان الدجنة هي نورشوا ذي نقالوا وحكوا صوب بيرة نقالها تذكر أي دافع عني نوبي مادين لا بقى ضوا كله جالس أفريقيا أو بديس يبرجيس بقى أنت جالس أفريقيا سوى هذا برواقة بدل لقى نوراه هذا يتهم معدن هذا يتهم الشدال هذا يتهم بطة oo dawlad wara xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaale waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo ka saakeed waxa kale oo muhiim ah adduunka maanta waxa soo diyaarada iyo waxa soo maraakiiba iyo waxa soo dhaqaalaha nin waliba u ordayana waxa weey geeska Afrika nin waliba waxa ka doonaya inuu amnigiisa ka ilaashado waayo in aliya inta la sheego xaq jir ama laga baqo ama colaad ka jiraana geeska Afrika ka jira nasiib darro iyadoo intaas oo barwaaqaale waxay noqotay geeska Afrika boqolkii sano u dambeeyay meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka degi waayeen maanta hareerayna bal yama waxa ka dhacay waxay goostaa 300 kilomitir waxaan ahayn 200 kilomitir bal Soomaaliya eeg waxa ka dhacay waa jaarkeena waa isu furanahay dhibaatada inta leeg ma ka socota mar walba cid kasta si kasta ku baad waxa ka oogan xasarad marka qolo wali waxa isla xasaradeeda leh iska ilaali loolanka caalamiga ee maraya dawladaha ku jira geeska Afrika oo fara badan oo dhamaantood taag daran waana mid xoog maanta adduunka ay korstaan lahayn waxa ka noolaan kara oo ka nolosha mustaqbalkiisa kala dhex dabaalan kara ciidda isku tashata midaysan garanaysa si mawjadaha socda iyo adduunka isla socda halku dantiisa ka baarhay ka bixi lahaa qofkii dawladii
isku tashata taladeeda mudaysata khilaafkeeda hoosena yaraysa keeda guudna samaysa ayaa ka dabaalan kara ubadkoodana mustaqbal u dhigi karta sanadaha soo socda halbeega Somaliland halkee ka joogta ilaahay mahadi waxaan qabaa inaan meel aad iyo aad u wacan ka joogno ma ihi dadka mutashaayimka ah ee rajada xun ee waxa ay waxaasanahay u fiirsa hareeraheen oo dhan Djibouti Soomaaliya Ethiopia intaba waa la ictiraafsay intaba waa la taageera intaba baanka adduunka wax ka mahada intaba waa la garab taagay Somaliland soddon sano ilaahay mooyee ciidana ma ictiraafsana ciidana wax ugu ogola waliba cadow xoog oo la dagaalamaya hadana bifadli Ilaahi wa hamdi Ilaahi iyo midiisa oo midaysan iyo tashigeena ayaynu ku taageerno walba san ka galnaa waxa ka Soomaaliya gaar soo qaadaya laba dawlad baan ahayn lixankii midoobay ay ka duntay midnimada isdiray midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaar ah u dhisatay soddon sanadood waa la ictiraafaa sanadkii u dambeeyay Mareykanka oo quriye 140 milyan busi iska dhaaf jimcada qurba ka dhaxaysa iska dhaaf Turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo wado iyo ciidan u dhiso ciidanka weyn u dhisay sida ay tahay haddana maanta bal hadda eeg waxaas u dhigay galiyay oo intaas soo garab haysata oo si walba loo taageeray maanta Kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dawladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysaa halka la isla maraya iyo qarax ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda Puntland baa u soo wata maanta la qarxiyay waxaana wadada dawladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas oo dhawada oo markay intaas oo dhan ka dagaalamayay waxay ka wadaa way waxa soo tababar kuwa ku soo tababaraysa ku soo diyaar garoobisa Somaliland way soo diyaartaa colaadeeda oo ay ku soo maqantaa Somalilandna waa ku gaamurtay inay cadawga iska celiso diyaar baan waa aragnaa waxa soo wada farmaajo